isbaranay markaa wuxuu yiri aan iskuulkii isku baranay wuxuu yiri teleefankaaga ii qor waan kaa helay teleefankii waan u qoray anigu markaa ma ogin inuu reer leeyahay markaa aduu sheeka dheer dabadeed wuxuu yiri wuxuu rabaa inaan ku doonto oo aan reer kaa dhigto maadaama 4 sanadood aan reer kala soo lahay uu ii sheegay reer kale inuu leeyahay markaa wuxuu yiri horta codkayga ma la maqlaa si toos ah lagu maqlaa ku soo markaa uu iga dhacay sheekadii wuxuu yiri 4 sanadood baan reer lahaa wax u bada ilaahay nama kala siinin waxaan is leeyahay bal meelaha galgalo oo intaas ilaahay wax kala ku siiyay ilma iskaga kiina qorneen wada kale raalimo ku bandhiga dawladda waxaan ku yiri waayahay baan ku yiri aniga markaa quruxdiisii iyo jeebkiisii yara buuran idhex qaaday waxaan siri bilow ku degtay adna aad mataana u dhashaa waxaa dhacday way soo doonay waan wada degnay meel baan wada degnay markaa baan wada joognay wuu laabtay dibadahaas ku laabtay aduu wax yar buu maqnaa wixii aan telefoonka wada hadalnaba jacaylka aan u jilo oo dee aan israahdo minyaro waa taqaanaayo miyaro iska dhigayo aan isleeyahay ninka soo jiido qalbigiisa dhan bas xaggaaga soo aado maskaxdiisaba dhinac kale u rag waaye in yar kadib muddo aduu sanad baan dhamaynba uu soo laabtay annagoo wada joogno isku wada faraxsan inantii kalena horta way maseertay insoo dhaafay inantii kale way maseertay waxay tiri ninkiina 4 sanadood aan u sabrayay dibadaha ku maqnaa waxaan u dhali waayay waxay ahayd xanuun ima haynin balaayo ma qabin dhaqaatiir baan tegi jiray meel walbaan mari jiray quraan baan saari jiray ilaashihiisa badan oo igu batay baan u dhali waayay ma dhalis ma ahi masayr bay way maseertay reerkoodii dib ugu laabatay aduu waa la dejiyay waxaa la yiri ninka maadaama 4 sanaad wada joogteen ilaahay wad idin kala siinin waxaa laga yaabaa waa nin reer wuxuu isleeyahay waa inta ilaahay meel kale ka siiyay ama ku joogo raali ku noqo ama reerkooda u soo bandhigeen markaa reerkiisii kale uu iska dayso waxay tiri waxaa dadku sheegayaan dadkii dhan baa ku wada kacayo markaa waxay tiri maadaama dadkii dhan isku wada raaceen inuu waxbadsi u guursaday nacayb meesha imaan hayee tiri reerkiisu wuu haysta marka way daysatay iyadana aduu in yar markii aan joognay aniga waa lagu kulama caaw dhan bay u hurdaa caaw sheeka dhanaan bay sheeka ciirayna wada ismaha caaw sheekada waa ciir ku soo laakiin xalay waad kulay ismahane aduu markii dambe igu qaato oo xilli dambe ii tahay waa aduu 2 iyo ku soo 30 daqiiqo marka waana si afaf dhigtay waxaan sheeka yaroo dinis ah baan ka sheekeynayaa aan caadi waa ku soo kululayn maadaama caawa qofkii macnihii sheekadii labaad aan caawa soo qabsaday haye ku soo inta dambe laakiin kululaan doontaa dhib ma lahan sidaa shakiira iyo kuluma noqon doona adiga xadiis kala galayba haye kadib waxaa dhacday inankii uur haddaan yeeshay annagoo isku faraxsan oo wada joogna baa maalmaha ka mid ah annagoo wada qoslayna wuxuu yiri banaanka u baxo waxaad igu yeertaa 2 nin igu yeer kugu yeeraya waa maxay quraacdii baan u fadhinaa quraac baan isu sameeyey quraacdii baan u fadhinaa afka ugu gurayay waxaa waa maxay nimankaan u yeeray maxaa kaa qaldan oo nimanka u sheegaysaa aniga adiga qarinaysaa markaa wuxuu yiri may aniga go'aansaday inaan niman igu yeertay dibadda u bax 2 nin igu yeer markaasaan ku yiri nimanka iska daayo abtiga baa guriga nala deganaa waxaan ku yiri abtiga guriga jooga abtiga aan kugu yeero waxaad aniga iga qarinaysaa isaga u sheeg bas uu diiday wuxuu yiri may horta bal abtigay bal u kaadiyo horta bal haddaad 2 nin soo weydinna bal mid meelaha iga yar dibadaan u baxay banaanka niman baan soo eegay waa soo waayay nimanka waxa soo eegaysaa lagu furamaya bal waxa
kala sheegi lahayd shoo nimanka furniin buu raadin nimankii furniin buu ninka u raadinayaa ilaa anno kama warqabo waxaas ba iguma jirtaba farxad baan ku wada quraacnay quraacdii hataa weelkii weli maan gurin oo halkii ma ninka cuntada afka ugu gurisay waa ninka cuntada afka ugu أعوذ بالله waxay aragtaa anagoo wada qosrino qolka fadhiga ku wada jirna dib bay nooga laabatay waxay istiri bal reerka ka dhex gelin dib mar kale u imow ninkii waxaan ku yiri uu niman soo waayay waxaad aniga iga qarinaysid sidaad nimanka la raadinaysid bal abti u sheego abti aan u yeero waan istaagay abti baan u yeero waxaan ku yiri abti kaalay waxbuu kula qarinayaa waxay tahay ma garanayo kole waxaan u malaynaya xaalad baa ku timid uuna aniga ii sheegi karin oo isleeyahay qof raga u sheeg bal sheekada ka horeysa oo wuxuu ku sheegi lahaa bal isla wada hadlo oo dib qol kale idinka gelayaaye markaas wuxuu ku yiri maya abti ha tegina ii kaada abti halka ii yara istaaga abti isagii baa dibadda u baxay nin buu arkay meesha maraya ganjeelka hortiisa maraya ninkii buu yeero wuxuu ku yiri kaala in adeer kaala uu soo leexiyey wuxuu ku yiri abti adiga iyo ninka may maqashaan haa inantaa waxay gaga furan tahay 3 dalqadood أعوذ بالله واحد شو سمي سنة ما كان ما جرت anay oo inoo dhexeeyena ma jirto bas waxaan ku yiri aniga naxdin waxaan siri talow ma qaldama mijin baa ku dhex dhacay maxaa masaaka ka siya maxaa ka qaldan quraacdii baan eega waxaan iri quraacdii waatan hadeer weli xataa weelkii maada qaadin waad isku faraxsanaydeen waxaa ku dhex dhacay oo uuna kuu sheegin inta hore aroorta hore quraacda samaynaysay maxay taa waan yaaba markaasaan cararay qol baan isku xiray 3 dalqadood bay igaga furan tahay markuu yiri anigu waan ka cararay qol baan isku xiray qol markaan isku xiray nimankii way ka dhageysteen odaygii abtigii ahaa iyo ninkii kale marqaatiga banaanka dibadda uga yeeray way dhageysteen haye waayay ku yiraahdeen kii uu iska tagay odaygii abtigiisa ahaana qolkiisuu iskaga laabtay bas telefoon buu diray wuxuu telefoon u diray walaashay wuxuu ku yiri ii kaalay telefoon buu diray ii kaalay waxaan rabaa walaashaa waa furay gaarina hore u soo kaxayso aqal qaadide ayadana qolka igaga jirtaa igaga soo saartid أعوذ بالله ولا شاب وعبر كاري يسار walaasha yaab bay u dhimatay waxay tiri maxaa ku hela shaydaanka iska naar maxaa kaa qaldamay alla dumaashii sidaas maahan waa maxay markaas wuxuu yiri naa iyadoo kale ha igu noqonine weligeed baa lisfuri jiray kaala haddaad ka naxana soo saarin kaala iga soo saar عاود دمرك بس عاود waxba khaldane عاود دمرك walaashay waxay tiri walaashay waxay iska soo hormarisay oo dee qof dumar iska garanaysaa caruur iyo intay ka daba jiitamayso ka balamayso si eega iyo wax dhahayso waa waqtiga waxay soo dirtay odaygeeda soo dirtay waxay ku tiri bal orod soo eeg waxa helay waxa reerka ku dhacay bal orod soo eeg dimaashigayga walaashay qalbiga yimi wuxuu yiri maxaa qaldamay ninkii uu wareystay wuxuu yiri maxaa qaldamay markaasuu yiri wax qaldamay ma lahane gaari yar baan wataa maxaa qaldamay maxaa ku dhacay markaasuu wax nagu dhacay ma lahane waxaa samaysaa in adeer orod suuqa aad waxaad u yeertaa gaari xamuul oo alaabta xamuulka qaado inantaa aqalkaas u rar jiifkeedii fadhigeedii waxaa dhana meesha yaal shadaafada ha igu reebin u qaad meherkeediina waata bashqadii ku jirtaa iyo macaawarqadeedii waana furay dee weligeedna waa lisfuri jiray orod intaasan aniga halkaa kasoo qaylinaya alla maya sidaa ha yeelin dumaashii wuu wareersan yahay dumaashi wuu xanuunsanayaa sidaa ha tegin gaari ha u yeerin alla dumaashi maya furaansa halkii baa qaylo afka ku shubtay aduud ooysaa marka inaad guriga joogtid baa rabtaa yaa waad ooysaa marka adigu inaad joogtid baa rabtaa dee aniga guriga inaad oohinta baroortood yaabisaa waxaan leeyahay marna ilmada hoos bay igaga socotaa marna qaylo af ku shubanayaa waalida isagaa ku sheegay anaa waa waalanba hay hablo ma ooyleedin guriga ma dhex fadhiisan leedin soo bixi leedin shaw gabdhuhu guryahaba kama baxaanba albaabka qabso hay
albaabkooda qabsada caawa albaabka kuwada degantiin caawa ku soco waan bixi lahaa uf maya waxaa albaabka loo xiran wari caawa wari qaar badan baa leeyahay waan jooglayn waan bixi lahaa waa qosolka guriga dhex fadhiisan lahaa oohinta sida gabadha ma guriga dhex fadhiisan lahaa oohinta waan bixi lahaa waa qosolka ku soco walaga kuwaa wada taabtee guriga dhex joogi lahaa wakaa qosolkee wada taabtee soo ma jeedin ku soco stop waad bedeshay halo waad bedeshay hay اسمها كسعة halkii waxaa idhaahdaa xabiibi shaydaanka iska naar xabiibi shaydaanka iska naar dimeeshi adna alaab ha keeni gaari ha keenina inanka qabo quraan saar hala dimeeshi maya sidaa ha samayn halkii baa qaylaabka ku shubtaa markaasu oo ama yidhaahdo reerka hala kala raro ama ha la isku daayo midna ma yidhaahdo qolkiisu iskaga jiraa abti maxaa ku hela abti maadaa sheekada ka dambeeya abti maxay tahay abti dumarka la arki jira labada qof oo isku qanacsan isjecel kala dhex galo ka shaqeeya abtigii baan eedda dusha ka saara maxaa dhahday abtigii maxaa ku dhahday abti maadaa naga dhex shaqeeyey waa maxay ka quraan saartid maad la hadashid waxa meesha ka socda maad kala xalisid adiga qof weyn abtiyo maxaa ku hela abti afka furo abti hadal baan ku hayaa abtigaa baad qabsatayba abti ninka ii qabo abtiyaanu ii furintaas haysaa isagu abti u yahay ninku abti u yahay oo gurigu wax ka noolaa gurigu nala degan yahay hay bas waxaa dhacday hadalkaygii waa loo dhigi waayey walaashay baa timid waxay tiranaaya albaabkayga fur waan ka fura albaabkii kelmad baan odhan lahaye waxaan soo albaabkii waan ka fura ku soco abti walaashay baa timid waxay ugu tiri albaabka furbal horta shaydaanka iska naaro albaabka furbal horta aan ku wada hadalna albaabkayga intaana furin haddii isxaan ii samayn ismalcaamada tago laba wadaad u yeero quraan ku aqriya wiilka waa xanuunsan quraan ku aqrin intuna dib banaanka u bixi ku aqriya bal horta daa walaashay tahay haddana walaashay baa haddana qabsaday bas waxay ugu tiri bal horta aan wada hadalna hoos u wada hadalnay aamus ha isceebeen inan la furayo qaylina sawdhigeed lama aragay bal albaabka iga furo waxa samaysaa aan wada hadalno albaabkii waan ka furay waxay ugu tiri wax ma ku sheegaa dib ma lahan aqalkan ku rareynaa ninka maadaama wuxuu leeyahay aqalka ha laiga saaro aqalkaagana kuu saareynaa gurigan aan ku dejinaynaa guriga odayga yare dhex fadhiya odayga midna isku kiindiray in aan kaa kaxayno isagana hadhow baan dib oola soo hadlaynaay adigu waa isi sabtay walaashay markaa naag weyn bay ahayd anna markaa inan yar baan ahay kadib way kaxaysay sidiiba aqalkii laigu soo raray alaabtii lasoo raray oo gurigii laiga soo saaray anigoo hadda cagajiid aan marna gurigii sii eegaya is leeyahay talo maxaad soo ilowday oo beena dee okay marka isagu ma military waa mise askari waxaa military askari maahane military weynaaday how wad ka maarmi la'day marka military weynaaday xasuus bay ku jirta gurigii baan tagnay markaa gurigii baan tagnay guriga walaashagnay aniga iyo dumaanshiga iyo walaashay wada soconno shaqafyadii xumaana layga soo daba qaaday oo aan ku qanacsanayn halkii baan tagnay ileena intaan yar aan sheegayaba dhibaatada igu ahaan maanta aniga barooro dilaaca la ahay waxba jab baaba ka dambeeyaba ma intaan wax ka dambeeyaanba gurigii markaan tagnay jabba waa ka dambeeye gurigii markaan tagnay telefoon baa laga soo daba diray naayaa wax makuu sheegaa inanta hee 4 sannadood baan naag qabay 4taas sannadood naagta uur ima yeelanin markaa ilmaha yar caloosha ku wadid aniga ma dhaline meeshaad geen lahayd la aad hadday cuslaatay marka laba dhalin buu kudhi xaggaad ka keentay
afar sanadood baa naagta afarta sanadood naagta qabay kuma sarine hay labadaa bilood aad la soo boodday adkaatay aawo tiim adkaatay caali waa adkaatay si toosa magaceena waa tiim adkaatay sheekooyinkeenuna waa adkaatay ku soo way adkaatay hay garoyo gabal kuu dhacbaa meeshii ka baxay furniinkii dee weligeed waa laisfuri jiray laakiin nin aad gursatay ood meel u degtay oo reerkiina kaa soo doontay ogaa oo gabarnimo isku aragteen oo haddana ku yiri ilmaha caloosha ku jira aniga ma lihi jabka weyn ma jiro furniinna waxba ma aha marka taa loo eego furniin waxba ma noqonaya codkaaga gogoay laakiin ismahani xoogaa ismahani khadkeena hagaaji qol baan isku soo ismahani khadkeena hagaaji hawla codkaaga yar gogoay khadka hagaaji sheekadu meel xun bay maraysaa sheekadu meel xasaasiya maraysaa khadka naga hagaaji okay adag bay maraysaa caadi loo maqlo waa waxaa dhacday markii ninkii telefon ii soo diray oo igu yiri ilmaha yara caloosh ku jira aniga ma dhalin shaqana kumalihi imana soo sheegatid dee halkaas ay sheekadu martay anigii markaa gabal baa ii dhacay baas naxdin murug calaacal maxaa ku leeyay nin naag intaasoo sano qabay waxa u dhali weyday mindhaa maxaa hayday naagta inka dhex shaqaysayoo waxba idin walaaqday adu markaa wax baan istusaaleeya ma fahanta kadib adu 3 cisho kadib hooyadiisa ay la soo hadashay waxay ku tiri hooy shaydaanka iska naar ilmaha caloosha ku jira horta maamadan u sheega waxaa ku yiri hawa ma ka warqabtaa inankaagii wuxuu igu yiri hadalla aana jeclaysanin waxay tiri wuu ii sheega wax walboo jira waan ka warqabaa laakiin hadalkiisa ka bax ilmahaas yarka annagaa iskale hadduu isaga wax ku tari waayo annaga ku tareena waxba ha u dangelin wax alaala wixii kugu baxo intaad ilmaha caloosha ku sidid iyo markaad dhashid intaba annagaa mas-uulka ah habo maxay ahayde ha u joojinin ninkaas waa nin xanuunsan iska daa marka maamadii baa niyadda ii dejisay oo maskaxdii waa ii degtay qalbigii ii qaboobay laakiin dee noloshii farxaddii iyo wixii baan rabaa ma fahantay oo aan isleeyahay talo yaa dib kuugu celiya aad iyo aad kadib waxaa dhacday aduu 2 bilood meelahaas markay kasoo wareegtay isagii wuu laabtay meelahaas ka yimid uu ku laabtay hadduu laabtay waxaa dhacday markii dambe shaydaankiibaa wixii saarnaabaa ka degay anigana waxaan bilaabay inaan magaalada istirtiro oo magaalada dib ugu laabto oo dee aana u dangelin wuxuu yiri ilan halkaana niyadda laiga dhisay oo laigu yiri ilmaha annagaa iskale annagaana mas-uulka ah wix alaala wixii ku baxa qarash iyo wax kasta innagaa mas-uulka ah maamadii niyadda ii dejisay anna niyaddaan degsaday caadigaan iska dhigay dhallinyaranimadeedii baan ku noqday iskuulka dib u bilow bareefad iska dhigo magaaladaada kareemkaaga iska marso barfuunkaaga iyo cadarkaaga iska marso magaaladeedii baan dib u galay isagii baa kii jacayl ahaa ku burburay markan xabiibi saas ma ahayn shaydaan baa i qaatay naagtiiba maxaa waxay ku tiri intaasoo sana anigii ku dhali waaye hadday kuu dhashay ee ku tiri ilmaha caloosha iigu jira waxaas wax ka jira ma lahan ilmaha adiga ma lihid waxaa samaysaa waxaan kuu sheegi karaa ilmahaas inaadan lahayn marka tashuush baa laigu furay raali noqo xabiibi macaan waxaas wax ma lahan ilmahaygana iskale waan ka xumahay hana oga sheekayn hadda kadib hadduu dhasho ha ku dhihin aabbaha baa saa ku yiri adoo caloosha ku jira waxaasaa u dangelin waan soo laabanayaa kaa yar dhex galaywaxaan u malaynayaa odaygi way soo kala tageen qoraalla iisoo dhacayaan arkayaa markaa soo qabo maamadan inoo dejiyo yaa soo qabtaa hibo sharaf adkaatay ma hiba soo laabatay royal anaa degaya saaxibo anaa degaya soo qabo ii fadhi
hibo ma arkay soo qabsadhe horta haye muxiidiin sheekadiisa maan muxiidiin ha degin walaal anaa degaye marka waxaan tiimaadkaata weydiinayaa ninkaa ma la soo celinayaa mise waa la daynayaayo halkiisaa lagu muusayaa ma soo celiyaa ninkaasaa laydin dhahay mise waa muusaa oo maqlaysaan ma soo celiyaa mise waa muusaa ma soo celiyaa mise waa muusaa ma soo celiyaa waa qosolka